jabhad dagaalamayso dawladdii aad dhisanteen oo aad ka tagteen waan ka tagin dagaalka heshiiskaasu mid daacad ma ahayn Ethiopia daacad kama ahayn annaga daacad kama ahayn annaga daacad kama ahayno dee waxyaabihii aanu hordhignay Ethiopia mayna fulinayn haddiina fulinayn aanu Ethiopia liska celinahay qayb weyn baan ka qaatay xanuuniyo weyn baan ahaa waanu heesahay waanu gabiyahay taariikhdan u sheegay waan ka ooysiinahay ina mariyaan annaga qoriga qaadila yaan meel biyo ka cabnay waan fadhiisanay meel baan tamay inaan ku soo kaajo laba digiiran ba hoosteeda ka boodo birrif laba iyo soddon ukumood baa yaalla kaalayaan nin walba xabad qaadan ku dhig dabka la shiday waanu maartay dubnay nin walba xabadiisa in yaroo sonkor in yaroo meel xan saagu daray yaan laqnay kaashi ana waan kala dhaqaanay ciidta luulaysa waa sododay kolkaasaan damcay inaan noqdo waan noqday waan soo jiray ima aragtay iyadu saddex goor afar goor baan marna jireeyay marna kolkaasaan calooshiidu waxay leedahay ma kuwii baad adoo madhan u tegay ma sodohdaa baad dhihi kartaa waxisii waan saasaan calooshiidu wareegtay markaasaan intaan ag fadhiistay oon salaamay madaxa ka dhunkaday hooy bal waran markaasay saa ii dhowtay naxday madowga iyo rafaadka iyo silaca iga muuqda waxageed ka timid markaasaan idhi meeshaan ka imid waan isweydiin doonay ku subxaana habaysano iyaduna shigigir migistiga waxay u samaysay Eritrea inay ku go'do oo qolo walba way go'i kartaa hoos waxa ka xaysnay Eritrea oo dee ciidankeedii iyo dalkeedii xafidatay in lagu gooyay Tigreega laftooda markay wadanka yimaadeen iyo heshiis dawladaha reer galbeedka heshiis la soo galay Soomaa laakiin waxay sheegayaan waxa xabaala kala labay waxay bilaabeen inay dadka laayaan kan waa taxad kan waa kan kada kan waa kan munaga soo jeeda madax badan bay laayeen wadagta madaxdii أنا في منطقة الكل سرق حدد موز هذا حد بلا قدومي كحيان كي قبض الرجل قدري وذكرنا صديق محمد العربي محمد المرتوي قدومي كحيان صوها وحلد لي مراد ليلي وحلد لي دولني وحلد لي مراد الشيخ يوسف وحلد لي هذه لها كوسم أقول لي هي أن نكلي هذا عبد الهيجري وريد القدري وحلد لي إن الشيخ محمد العرب كورنيلكي وحوق آمية واجا طبعاً إنك وحوش شيء كرا إلا دو طبعاً إنك وحسين كرا إلا دو إنك هذه اللي راح بقول هلا دولية هدي بقى صباح وطبعاً بحلو قال كرامات سما برينو وقال كرام سما إلا ما تقول سبع البوها إنك أما الشيخ آية القرآن يحدث شيء أما علم صوبرتي أما افتهنا أما قبيعة وحوش شيء كرا إلا دو تذكر واحد راح يقلب سيدنا المجد وأمسينتي خرق إن كل شيء مكرم من يو أبيه يو السمايين madaxdii xasan gamaam iyo ordin iyo heblow ragga dhan la laayay sidoo kale ay kuwanuna madax ka wada tooganay wixii madaxda la aamusiyo saasoo dagaal ku bilowday dagaalkaas ku baxay ciidan madax markaa naftoor anigu ma shacban maxad ahay markaas xubnaha anigu waxaan ka shaqeynayay xubin jabhada kamid ah waan ahaa xafiiska degmada qabdaarana waan ka shaqeynayay madax xafiiska shaqaalaha degmada qabdaarana ahaa anigu dagaalkii baa la galay dawladda anigu dawladda dagaalka galay وهذا ولي بدولتها شخصيا أنا دولة وتنو عيدن كجبدة تاعتها هجامين كجبدة دولة دولة مجالوين كوتشوجي مركا جبدة وين خلق بس قرنا حفيز كده تشوجي صح هذا وفك حفيز كوتشوجي بالله أنا هو الدولة تكلم عنها مشهر ما قادنا دولة بالله إنه وطن هاي مشهر كيقول الله بدكم ولا قادنا تقال ببلاد ورقة باتمد وكسب بحد الثلث كجود قرقان حبشود يلا كمر مرصون السر الاتحاد ما لطق الله منه وقول شيء كسر تبني ونمك صوفها فيا كور تجينا يا ويرثي قرقان كدي ورقة محاكوت معد محد كو قرتين وحكوا قلنا قبل هذا أردن وحلاك على دري ورقة وريكت أو كسب بحد وقان كسر يتبته marka ma warqadii uma idinta maada mise xogta maadaama saan colaadeen uu jirtay ma yadaawluhu way iska soo socdeen gudoomiyaheena lagu qaban gaaray qabridaar waxa lagu qaban gaaray dhagax buur waxa lagu weeraray oo la damcay in lagu dilo wardheer oo shacabka wardheer ee geesiga ah iyo dadkii faraha badan meelahan kale isku dar ahayd la isku madeyn la qabto laakiin waxay isdeen wardheer basho af meeraheed xilli habeenimo ah inay kharajiyaan ay damceen shacab aad u fara badan oo shacabka wardheer لكن حديثنا حكوا ورابين أنت مالك على مطي خير فربنا صاحب بدأ يكتري يا ست لو دقي كدب يا يرى استافكي ودك مركا وراقبة كوت معك وراقبة نوتين هاي لا تنكبش أبريل حفيز راح هلا حلو دقال دير جروب هبين كاس تبادي بحذر لا تنكبش هبين مدود دات كور تن أنت اللي سويري وحفيز كتب هدا
warqad dheer loogu akhriyey iyo kala dhaqaaqday jabadii way baxeen tirab gaarka naga hayeen laakiin dan lagama gelin din niyo haysta moogta inna kama cabsadeen xagee la tagay marka anigu habeenkaa ma bixin anigu waxaan baxay 26 abriil habeen baa ka dambeeyey maxaad oga hadhay waxaan uga hadhay inaan yara diyaar garoobaan rabay carruur iyo gabadha meesha iga joogeen dee iska baxoona way yara adkay tumog arrin adag bay ahayd amarna habeenkii waa lana siiyey ogow habeenkaa hore amar baa lana siiyey waxaa qof kaste oo maamulka deegaanka u shaqeeya ma bixi karo yaa idin siiyey gudoomiyahanagii cabdikariim maxmed xaaji iyo dhilif nin la yihahdo oo warqadda akhriya amar baa la bixiyey aniga maa iska baxay baxlay ma dhin bas marka dadka amarka la siiya ka mid mahi cid kasta oo maamulka u shaqaynaysa joogaa la yidhi duurkaa la galay marka xagee la aaday markii la baxay qaybtan anigu aan ka tirsanaa haa magaalooyinka maalinkan laga baxay habeenkan laga baxay waxaa ka mid ah goday iyo qabridaah iyo wardheer iyo dhagax buur hal magaalo waxaa loo baxay dhinaca galbeedka waa wardheer xaggan dhinacan waa fudhoog iyo garlowgubiya dhinacanay usoo baxeen maaragtay maamulka joogay laakiin wardheer maxaa sida goday dhinaca baarguun iyo dhinaca bari bay u baxday annagu dhinaca bari baan u baxnay waab baan u baxnay waab oo martigelisaba kacdoonnada 64 saldhig bay ahayd 77 saldhig bay ahayd 94 markaan baxnayna iyadaan tagnay qolada dhagax buur dhinaca iyo bulaaliya baxeen iyagu laakiin nasiib wanaag markaan baxnay anigu markaan habeenkii tegey aroortii baan baxay anigu maalin baan baxay aniga iyo nin dhinto cayriye la yidhahdo allah u naxariisto oo aan ilmadeerna iyo nin hadda kanada joogo xasan sheekh xuseen la yidhahdo iyo nin la yidhaahdo garaad maktal oo hadda gabagaba aan ku oga 40 saac ilxaar ka tagnay maalinimadii dadku si aynu xisaabtamayna aniga cayriye labadan wiil waan ka waaweyneen markaan ilxaar maalinkii joogno wana aroorti qabdaara ka baxnay 3 saac iyo meelaha waxaan nidhi waa maxaa inooga horreeya waagu cali shacaac iyo cismaan gaab iyo intay fadhiisana dadka hubka qaybinayeen maaha minagoo faramaran baan tegaynaa labada nin baan wax u sheegnay 4 qori lahayn baa la kaalaya midna 3 qori buu lahaa labana annagu noo kala dhiibay midna isaga qaatay midna hal qori buu lahaa qorigiisii soo qaatay annagoo gaashaamaan baan tagnay oo gabdhaan nala socdaan oo 4 sanduuq oo rasaas oo beeka imi ak ana wadan yaan waab tagnay waab aad baa loogu farxay gudoomiyihii oo meesha jooga ilmu siiday waan garanaya waayo dad dallad wata u imanay dad iska socdo dallad iyo yaro sonkor wata annagu ciidan aan nimid annagaaba dadkii meesha joogo dhan difaacinay afar inoo markaa joogto aad u hubaysan oo aad u ciilaysan ninku markuu caraysan yahay wax iska celiyaa ciil lahay malaha 40 waan u dhigmay dhamaan malayn wardheer annaga markaa ciidan la'aan meesha kama jirin ciidankii loogu talagalay dadka qorxina keenan meel fool jeex la dhahay dagaal kaga jireen wadada ku jireen oo galabta markaan annagu saako kala tagnay casarkii dambe dagaal ka dhacay dagaalka koobaad ee dhacay wuxuu ka dhacay fool jeex sabanka la isweydaarsaday garab birqod waxa ka dhacay muxuu yahay birqod waa goorma waa 92 waa intaana dawladda dhisan ka hor marka 150 nin ha waa dawladii ka hor waa doorashadii ma dhicin kadib waan heshiinay annaga Tigray Soomaal wardheer iyo goday iyo qabri dahar waxay heleen unugyo ciidankii gargaan ka soo baxay ah oo eerida ay joogaan iyo shacabkii maartay xubnihii ay ku soo hirteen laakiin si wanaag dhagax buur meelhin dhagax buur markay baxeen xubnihii nin la yiraahdo cagabur yaa loo diray oo dhow ciidan wata isagii ciidankii si cagabur ciidankii intuu feeliyay yiri jabhadii way fashilantay waana la burburay nin walba heerkii oo ka jabhadii kala diray isla wuxuu saakay malaha qoriyin intuu ka tagay saakay jigjiga in Djibouti dhowr wiil oo marka dambe ay siri doonaan qoladii cid ku soo dhaceen meelaha bulaal markay soo marayeen nin qori ka irgisteen waxay wataan qori xun oo baybasheelaga qoriga waagii hadee ay jabhadu aan duurka joognay waxaan go'aansanay inaan taala u dhigno taala dheer oo baybasheega la saaro markaan xorow qoriga beebegaas iyo hal qori oo kale oo isagana nin soo raacay meelaha ay ka heleen haliyegi ahaa xalliye qayb weyn buu ka qaatay
xalliye iyo wiil uu la tagay oo beebasheegii iyo qoriga kala wata intii kale wuxuu yidhi dalladihiinna qoriga ka dhiga yaa tagay magaalada laba axmar bay soo direen laba qori bay ka soo qaateen haddana laba axmar bay soo direen laba qori bay ka soo qaateen haddana laba axmar bay direen laba qori bay ka soo qaateen haddana laba axmar bay direen laba qori bay ka soo qaateen beebasheeg 8 qori bay ku soo furteen habeenkii baa la galay magaalada habeenkii baa la galaa ka dhaa laga soo guraa 8 qori markay heleen jabhad weyn baa noqday Soomaa dagaal weyn oo magaalada controlkeeda galeenba iyagoo jabhadii kala helin dhowrkii wiila kale qoladii xagga iyo maartay gurgadashada dig ay kaga yimaadeen iyo isheleen qori wiilashii iyagu ninkii rumaysan waayay waa la baabaaydee meelaha iska wareegay qoladii basleen laakiin intuu isagu helay wuxuu isku darsaday dagaal weyn bay ku galeen controlka oo magaalada xabada shawdeeda maqlaysa disdeed qori hadda haysato waaga ciidanka naga dhanba amar waxa lagu sheeshan nin ka badan in dagaal lagu gelin Soomaa shan cagada yarta shan cagadood baa wata shanta nin bay mar wax u karinaysaa shanta nin bay biyo ugu filan tahay shanta nin bay caano ugu filan tahay shanta nin bay koronkarta u karaysaa shanta nin bay shaah u karaysaa shan baa u kala qaano disdeed dagaal baa ku fiday wadanka dagaalku waa ku fiday ha marka dagaalkii waxa dhacay faljeex waxa dhacay dagaalkii maartay reexbuur controlkiisa waxa dhacay dagaalkii darin Allahu naxariisay oo naga shiiday ayri marka dagaalku bilowday jabhad dagaalamayso oo dawladii aad dhisateen oo aad ka tagteen waa ka tageen wixii doonay laga wada dhiso dad baa looga hadlay dadkii loo dhistay dawladdaas dambe la shaqaystay baa waraysiyo badan ka bixi ka aadmin maadaama warays taariikhi yahay dawladii waad ka tagteen aad dhisateen dagaal baad gasheen jabhad duurka ku jirtaan noqoteen bal waxaan rabnaa barnaamijka diwaan maanta kugu dheeraaday oo aadna lagu soo wacayo noodaya tahay waxaa jira 95 wax inta u dambaysa 95 iyo markii u dambaysay halganku xoogaysto 5 daqiiqaan ku soo koobina 95 heshiis baa isku daydeen inaad gashaan Soomaa ha balka waran muxuu ahaa dagaalka heshiiskaasu mid daacad ma ahayn Ethiopia daacad kama ahayn anaga daacad ma ahayn de waxyaabihi aanu hordhigna Ethiopia meel fulinayn haddii fulinayn aanu isdhiibno oo kabaha afka ku qaadno ma diyaar baan u ahayn maya Ethiopia diyaar mayna u ahayn Ethiopia shirka qabri daare oo aan alfmayna u qaban 2000 iyo dhowr boqol oo oday oo laga soo ururiyay deegaanka Soomaalida yaa la isugu keenay in aan anagu dad xun nahay oo la naga hor yimaado oo la nala dagaalamo iyo shirka loo qabto laakiin jabad way wada hadashay waxa la yiraahdaa dadka afaraha badan inaan meel inagu isugu keeni karin ya odayaashii waa sidii ka gari iyo ka dagoodi laga keenay cirifka iyo ka ciise cirifka laga keenay iyo ka feer laga keenay khudbadeena iyo rabitaankeena aan u sheegay mahda ayuba noo keenay warqad oo inaan ka soo qayb gali karaa amniga naga la sugaya oo ka soo saxeexay malisanaw waxaan ahayn 15 qof anigu ka mid baan ragii tagay qabdaan 7 nin oo golo dhaxa oo ilaahay naxariisana ka waraabiyo gudoomiye u yahay Cabdisaaq Tiiba يسدد عيدا يعني كنت سدد عيدا كان أنو تلي حيوان كأ عبد الوهاب شينا يا تلي كأ مركب بيش تجينا وحنا وصليه مثل اللي يوسف بدله أنا أنت استاف كأ مدح كأ يدون أنو نحن دون إننا نضغط كنا وحكنا عن النور وحسوا صارتي وين نجي ملف كده حوها سجال بلادي برضه المركز دور كوتشر ماشي تكتني دينكو هذا تتوقف يدور شيء توقف عن تكني أمن فيها المجال ده كله حرد أرى سيجال نجي oo raashinka abaaraha iyo guriyada looga habeeyay madaxda oo dhan way joogtaa halka madaxda shacabka Soomaaliyeed Suuriyo dhan way joogtaa halka jabadu waxay tiri doorashada dib loo dhigo chubi lagu wada hadli karo nabadeed oo aan dib ugu soo noqon karo oo doorashada rabay marka ay dhacdo Soomaa 1995 na halakeen aan soo noqon Ethiopia inaan soo noqon bay danta ugu jirtay oo idiyar qursanaysa may inaanu sii balaadhano intaan dhulka naga 4 sanadood baan intaas oo dad ka cinnay intaan sii joogno oo aanu gobolada fogfogeenan xitaa qaarkood gaarin aanu gaarno dadka Soomaalidu ay kor kacaanno sii madaynay diidanay eega yar yihiin eega duurka iskaga dhamaadeen bad wayna qursanayeen way soo afjarmayaan bay islaayeen ha iyaga shan isaga iman balahay saasay balahay Soomaa iyaduna wax sirtay wadatay in dadka naga hor keento annagana maartana qursato annaguna waxaan rabnaa dadka naga afkaartanada gaarsiino khudbad dheer oo cajiib ah iyo tiiba jeediyay waxa ka daba hadlay Bashiir Cabdi Xasan waxa ka daba hadlay Cadaan saddexaas khudbadaysa meel salaam iyo rooti la kulmeen bil marka joognayna waan ka baxnay magaalada
بالقبضة شوكتين bil baan qabtaa joogto ولا وده هلي 30 maalmood baan joogtay inta wada hadalku socday صح وده هذا الكل سكوف جرون waa isku afgaran laakiin waan isku afgaran weynaa kala tagna manaan aan isku soo baan noqon isu sheegnay waxaan anaguna soo tashanayna iyadoo raxaydu waan soo tashanay oo wada hadal burburay taas waa lagu yaqaan calaamadaha wada hadalka siyaasadda markuu muuqdo wax haddaan gogasha la saxiixin waraaq ha waxba la saxay doorka la galay doorka la galay dagaalkii dib u bilowday uu bilowday ha qaybaad ka qaadatay Qayb baan dagaal ka qaatay. holac oo dambe oo holocaust waxa loogu yeeraa qayb baan ka qaatay dagaalka TPLF liska celinay qayb weyn baan ka qaatay xanuuniyo weyn baan waanu heesahay waanu gabiyahay taariikhdan u sheegay maxaa dhaysi markaad waan ka oysiinahay markaad dhaysi Soo ma garanaysid? maxaa dhaysi waxyaabaha igu daraa dagaalka dagaalka xabadu waa maalmo maalin walba dagaalka xabadu ma socdo soo طبعا waa maalmo waliba xilli kooban ilaan jabhad dagaalka nagaasu dagaalkan dawladuhu inta safka isu galaan ma ahayna dagaal waxa ku dhufo ka dhaqaaq dagaalan boqolkiiba 90 anaga qorsheynayna dagaalka kolkan doon waan iska daamarayna kolkan doonayna waan ku ridayna dagaalan anagu qorsheysanay buu ahaa waxa ugu badan inaan dadka naga wax ka dhacdhinay oo la abaabulo la abaabulo qaybna waan abaabulayna qaybna xabada ridaysay xoolahan uruurinayn arigan uruurinna qoriyaan ku gadanayn geelan uruurinayn caanaha iyo biyaha dadka naga qaadanayn dadka naga waxbaan ka dhacdhinay waxyaabaha igu daran waxay ahayd dagaal maskaxdaad gashay ha waxyaabaha igu daran waxay ahayd maalintii dambe 30 horta markaan wax yar joognay waxyaabaha ay maartay dadka aan ku kicinayno labadii gudoomiye ee deeq maxamed carabi iyo maxamed cumartooy allah u naxariisto waa anigu nimankan cayaaraha waa la shaqeynaya ninkii dilay ee ishalaa labadii unugood midna ay ku dishay buundada midna ay maxamed dhakhtarka ku toogatay ninkii watay nin madow way laabo ee xarban ku dilay tuma soo doontay yaan 12 isoo ku jira guntiga xabad ka qarfan ninka kibirkiisa korneyl axmed sacaad uwaas maxamed uwaas xaashi oo nala socday iyo dabcan gacanta ku dhigo isagoo nool ciidankiisa saas u leeyahay iska jooga bas toolad gacanta bixida ku wada TPLF tibuha ha waa TPLF rag soo dagaalamay ba saraakiishii min sabab qabsatay sabab qabsatay kibirka sabab qabsaday wiil yar oo Soomaali curdan ka cunayo cambuusha ku nool sabab ila dagaalamay leeyahay guntiga dabcan soo qabtay guntigan xabad ka qarfan waxa aan Mustafa Ajiba 2020 baan tagay meeshii 94 aan ku dilay ninka wali dhigiisi u yaala khayruhu meena degin waxa lagu aqlaa dhinac walba ka dhagax bay ku deyraan caruurta xoolaha aroorinaysa dhagax bay ku deyraan dhigiisina qolyada baabuurta kala moodaa ilaa hadda roob kasta uu daay dayrta biyaha roob ka xitaa waa meesha dhigiisi yaala dadka waan dadka ninkii maxamed cumar bedri ee dad maxamed carab dilay halkan aan dhignay dadkii oogayay soma inaan magaalada galay oo ninkii gabdhaha yiri waan wada fuulay malaak la yiraahdo isna kibri oo rag soo dagaalamay inaan suuqa dhignay waa la oogayay soma saraakiishu suuqa ku leenay soma habeenimo intaan laba wiil gelin sidii dhagax burbad xalliyaad madaxa ka soo jirtay ha way socotay baa sidii miyadina bad magaalooyinka habeen walba intaan galaan bartanka saar dagaal aad idinku hogaaminaysaan dagaal qabtaa dishaan dagaal 15 habeen oo isku xigta markii sida qabdar looga baxay wada hadalka dhamaaday yaan mareynay magaalada habeenka waan mareynaa nin baan dilaynaa laban dilaynaa meesha oo ay dhaaniska ku ciyaarsi khamrada ku cabayso isugu timid intaan soo gadnaan hal saban ku fadhiisanay marka dagaalka ku dhufo ka dhaqaaqa yaan wadnay waxyaabaha igu intaan joogay markan dambe halganka basar oo dadku ula qabsaday dadka iyagii waxa marila waan halgamaya waan dagaalamaya khashin ma haysto biyana ma haysto daawana ma haysto dharna ma haysto dadaygi maxamed siyaad barrana allah u naxariistay inama daba socdo waxba Soomaaliyana sidii dhabiyo sila fumlayga ma keenayo biyo ma haysto oo dhaawac meelan geeyo male oo daawo male oo raashin male oo dhar male oo waan kabala ah 15 maalmood aan kabala anigu aan socday oo gacandadu inta leegtay gabadh oo hadda Australia New Zealand joogto yaa isoo dhibtay kabo maalinka dambe intee ogaatay inaan kabala ah anigu ma garanay iyada gabdhan baa u sheegay isoo dhibtay kaligeena maaha badana waan kabala anahay dadka nagi dagaalkii Afriil 6 dawladda Soomaaliya hadda barta raad yaa caawinaysa kiisaba sababta dawlad guuraysa laha waan halgamay waxaan ma haystaa aniga caanaysi aniga raashinisi qoriga isi wiilkaaga igu dar wax walba isi way adagtay sumug qofka koobaad aan haduu ku soo wuxuu ku xigay dabada la galeena xigay dabada la galeysaan markaas Mustafa 30 nin oo lagu soo carbiyay waxyaabahan waligeed ilaa weyn 30 nin oo lagu soo carbiyay waxa tin ciidanka qaranka ogaadeen dadka ma martii kartaan lama hadli kartaan oo commando central sa u taagan ya leeyri 30 kaarin maanta inta lagu imanayo ala garanay dul mareen baad u tahay
nolol baad u tahay waa ku kaa wiil yaroo kaloo hadda inuu dhintay in kale aan urahayn yaan soo kaxaystay xagee ka yimaadeen kuwaas waa ciidankii Garibaan ها lagu tababaray xarada sheekha ha ilaa maartay saligii kaafi ilaa iyo 19 23 94 soo baxay halka ku jireen waraashikooda ku cunay gram bay lahaayeen ciidan iyo waraashikooda meel saaran yahay ciidan military baa lagu keenay oo meel saaran yahay anna adoo ka walaaba dadka bariis laakiin waa kan kada reerihii waxa ma haystaan kolkaasaan ku iri anagoo gaajo sakaraada ina keena heerahan wax doonanayna way diideen waxay anagu dad ma bari karo ciidanka qaranka ina mariyaan anagu qoriga qaadila yaan meel biyo ka cabnay waan fadhiisanay meel baan tamcayna ku soo kaajo laba digiiran ba hoosteeda ka boodo bir laba iyo 30 ukumood baa yaala kaalayaan nin walba xabad qaadan ku dhig dabka la shiday waanu maartay dubnay nin walba xabadiisa iyo yaro sonkor iyo yaro milix soo ugu daray yaan laqnay kaashi aan waa kala dhaqan maalinka dhammaan sii soconay meel baan u soconaa leeyahay taga maalinka baan sii soconay habeenkii baan sii soconay maalinka baan haar fuulay haarta anagu degan yaa waxaan arkay jees yar oo hoosnada ka muuqda kulkaasaan ilaa heerahan meesha ka muuqda inuu caaniyo wax doonanayna keena ma anagu ciidanka qaranka naydhan kuwan hadday gaajo u dhintaan ana liigu ogaasmo heerkii baan yaan wiilkii baan in badan baan siista laba wiilkii baan waran keen kuwan kale wax kale afar caagood baan qaaday heerkii baan tagnay markaas qolku u soo wareegay qofta koobaad ee ardayga fadhida ee ciidta luulaysa waa sododay kolkaasaan damcay inaan noqdo waan noqday waan soo jiray ima artayadu 3 goor 4 goor baan marna jireeyay marna kolkaasaan calooshidu waxay leedahay ma kuwii baad adoo maran u tagay ma sodohda baad dhihi kartaa waxisi waan saasan calooshidu wareegtay markaasaan intaan ag fadhiistay oo salaamo madax ka dhunkaday hooy bal waran qasay saa'id dhawtay naxday madowga iyo rafaadka iyo silca iga muuqdo waxaad ka timid basaan meeshan ka imid waan isweydiin doonay ku subxaana والله زيدري غيرت أكسر السمك بس أنا السمك هو كان رمني تسكول فتكوش هذا مقدة قال وقال لك ماشي يعني مقدة هذا المترو صدقني ها قبل حاسك إيه هذا وجهته إلى عمري هذا رأيه قبل أن تعله ويقلق القات توماس صنادوق كم قرع ورجال وحيد كان حاجاتكم قدها من دائما لا بقول ورقة يسقط من دول بحيتري أما أنا الصيد على قاض أما شرف كلهم أما هل كان شو ولا عروتي يعني هنجا بالبهرمت أما السيد على عنقاض ونكي وود أنت أنا مغلو أما هل كان كوك ما بالله ما نقول تص صدق يعني بيكون شفت قبرت له تمشي الصباح حظي ولا شيء من غير قاطي يلا نروح من نوبل ورت وحد اللي يصير عبسي مالك هسه ضافتي بربط صدق على قاعد بعد كلام أو ترسوك هاي صار ولا استمر كثير دقائق يدوريها ما حطي سنة تايم نول بس العروتي قبل ما تكون نقص حطي سنة بعد كذا عروتي قبل ما تكون نقص وإذا حبا يصير صدقين وصل حسن صار عروتي قبل ما وحنا الجمعية عروتي يا قبل وكون حبينا ميسان وحكون قدرا قف كستوك وكنا نحط عروت هذا بس أنا كل يكون هسكر انتين هو حرنا كل شيء شرف لي يعني داري تونا مصطفى وحكى له يقول ترين هربان ونبي صدقني يلا بدي نبي نقولي ولا وإلا عرفة وعرفة نيتفوق ويرى لبعضنا فارق عليه وعرف يسنا هي كل سنة وإحنا قاسية هرب وينوتي ده ما الحب بتكا قال كتام أنا أقول لك ممنوع بالنجاح إن نروح نفط هذا كاب حيسو روح إن وحيس طبعا ممنوع بعيد هل ويلا مال لما بقول بمال اللي أبدا جلس عدس نوع كانوا إيه ما كنا نعمل مع عدس كنا بس لو ربحنا وتشوف تكتير واسدة مدة نقول هذا كلامه كأنت مرنا أنا كسولسني قلت كم قضى كوش بلي أنا ساتة ولا عن والدتي